aad iyo aad ayay mahadsantihiin saaxiibayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi uu hogaaminayo ayaa halkan ka dhoofaya maanta waxaan u soconnaa dalka Turkiga oo martiqaad u fidiyay madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweynaha waxa lagu martiqaaday in uu booqasho rasmi ah oo qaran uu ku tago dalka Turkiga halkaas ayaa wada hadal ama wada xaajood labada dhinac ah oo labada dawladood ah uu ka dhici doona labada madaxweyne ayaa hogaamin doona oo yeelan doona madaxda kale la socotana waxay ka shaqayn doontaa iyaduna sidii wada xaajoodka ay uga mira dhalin lahaayeen waxa qorshuhu yahay in la soo saxiixo heshiisyo dhexmara labada dawladood oo ku saabsan xoojinta xiriirka labada dal iyo horumarinta dalka Soomaaliya iyadoo waliba aan filayno heshiisyo hore u rahmanaa iyo qaar cusub in aan soo gali doono oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Turkigu ay heshiisyadaas gaari doonaan labada dawladood ay gaari doonaan iyadoo labada madaxweyne ay hogaaminayaan haddii ay yiraahdana waxaan rajaynaynaa in aan dhawaan dalka ku soo laaban waad mahadsantihiin